أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورما أصحابي سيتين ميل البوجوبتين وحينا ليها رمضان كريم. أنيق بتقوى الحمد لله. إذن كانوا حيدا رجينا سيداس يسلمد انت حنوسنا يا ربي إله عافي. انت عاف ما تقبتنا الله الرحمن كاها وزياديو إن شاء الله. ما أنت ولا شيء محيدا وضع ما أنتو حيدا وضع sideen ku noqon karaa hooyo wanaagsan ama hooyo barbaarisa ubadkeeda sideen ku noqon karaa insha Allah. wuxuu ilaahay naga haleelsiiyay ama naga garansiiyay ka sheegaynaa insha Allah. Please haday tahay markii kugu horeysay subscribe noo saar, like dhac nagu sii dhiirigelin ayay noo tahay, waana kaaga mahadcelinaya. jazaakallah. asxaabteeda qaaliga ama hore u sii galaa mawduuca insha Allah. sideen ku noqon karaa hooyo wanaagsan. qodobka ugu horeeya dhowr qodob ayaan ka sheegaynaa insha Allah. waa inaad noqotaa hooyo samir badan. daruuri waa inaad noqotaa hooyo samir badan, waa muhiim jiddan. teeda kale dhegeyso. qodobka kale waxaa waaye waa inaad dhegeysataa caruurtaada. dhegeyso markaa ku dhahayna waxaa waaye hadduu kuu dhigto iskool ama dugsiga ama asxaabtiisa la soo sheekaysto maanta dhan waxaynu kuu sheego rabaa, adigana shaqaa ku jirta oo mashquulsan tahay, waqti uma haysid sooma. marka hadduu ku dhasaanay intay ka dhacday iskoolka xanaana hadduu kuu dhigto kuleeto maanta macallimada saanay dhahday intay ka dhacday cunug yarka oo ii dhawaa ama saaxiibkeyga saan waa inta maanta dhan marka wax kuu sheegaya dhegeyso. wax weyn ayay u taraysaa ilmaha la dhegeysto. walow haddaa si kasta u mashquulsan tahay dhoola cadeeyo dhegeyso. qof la socda attentionkiisa siinaya iska dhig adoo waxyaabaha kala qabsanaysid. waxaana kasii fiican ba inaa usoo jeesatidbo. qodobka kale waxaa waaye sii waqti caruurtaada. waa inaad siisaa waqti, yacni maalintii 1 saac ama nus saac ee ciyaaraan. ha celcelinin, waqti sii. maahan ciyaar oo yacni zaa'id ah ama oo asiga u rooneen jismiyan ama maskaxiyan u rooneen ma ahan, laakiin xurriyad sii oo ku ciyaaro 1 saac ama waqtigaa la gaaraa dhihi kartid, ama 1 saac ama nus saac aad leedahay inaad ciyaartid, inaad dhahdid. qodobka kale waxaa waaye hadduu allaha khaaliqa ogolaado. qodobka kalena waa inaad u gacan furnaataa. markaa ku dhahay maaha inaad israaf samaysid, laakiin inay gacantaada u furnaataa. qof wax bixiyo, hooyo wax bixiso, wax siiso, haddiid u keento wax uu yacni codsado, haddaysan wax zaa'id ahayn ama dhib u keenaya ama wixii zaa'id ahayn, adiga gacan furnaashada waxaa waaye waa inaa aadan macangeg ahaanin. muhiim ah waa inaad noqotaa. qodobka kale waa inaa maya taqaanid. maya markaa ku dhahayana waa bare. waa inaa maya bartid. yacni maalan wuxuu ku leeyahay hooyo waxaasaa u baahanahay, waxaasaa rabaa, mees inaa aado. wuxuu ku dhahaa adigana raali kama tihid ama asiga umama fiicnaba wixii maho ama maba rabtidba inaa waxaas aa u samaysid. mayaa leedahay. maya waxaa laga yaabaa wax yar kadib inuu ku dhaho hooyo haddana uu ku tutuugo. maya mar kale haddana hooyo macaan tusaan waaye ama dad uu kula joogo ama wax uu kaaga faa'iidaysto hooyo maanta dhan uu kugu celceli. marka dambe aa isdhaw war kaa aamusee hayi iska dheh. maya taas lama rabo. waa inaa go-aankaaga ku adkaysataa. maya haddaa dhahdid maya oo ogaadaa hooyo maya ma dhahda khalaas ka hadal ma jiro inuu dhaho. asigana waa u fiican tahay. mar walbana mayada ha badini. marna maya marna haa, yacni ha isku dheelitirnaato. 2 mar camal maya haddaa dhahdid 1 mar haa camal. 2 mar haddaa haa dhahdid 2 mar ama 1 mar maya inaad gelisid, yacni inuu uu fahmaa. qodobka kale waxaa jirto waxaa loo soo diraa cashir hadday dugsi tahay, hadday tahay xanaanada caruurta hadday ku dhigtaan, hadday iskool ku dhigtaan, in loo soo diro cashir uusan ka shaqaynina macquul ah. berito markuu iskuulka tago ama xanaanada ama dugsiga uu tago, cashirka inuu kasoo bixi waayo ama meesha lagu ciqaabo ama wuu kasoo bixi waayo la dhaho. cunugaaga inaad la socotidaa muhiim ah. markuu kasoo bixi waayo waxba ha garaacin, waxba ha dilin, waxba ha ku suubinin. waxaa keliya ka qaadaa qalabkay ku ciyaaraan.
yacni maalintaas wax cashirka uu diyaarsanahay waxaa mashquuliso maaha wax uu ku ciyaaray. Haddii game ahayd, haddii ahayd qalabadan laisku xirxiraayo oo la dhisayo aada usoo gaday, hadday noqotay TV, wax alla waxay yihiin. TV-ga hadduu yahay kadami oo ilaa maxay ahayd muddo 7 beri ama 5 beri, qalabkana sidoo kaleeto. markaas wuxuu ogaanayaa wuxuu ka hormarsiinayaa asoona cashirka diyaarin inuusan qalabkan ku ciyaarin, waayo haddii kale sidii ay yeelayso ma waa inaad saas yeeshaa. hadday qalad kaa galaan qodobka kale wuxuu yahay hadduu cunuga qalad kaa galo ha tumin ee ciqaab. tusaale ahaan waxaa ku ciqaabee wuxuu ku weydiisto kaleeto ama waxaasaa raba u dhaha adiga waxaaseetii sameyn waaye ima weydiisan kartid qofkii waxaas kasoo shaqeeya ama waxaas sameeye aniga waxaas igu leh. ama waxaa sameynaya meel ilmaha ay ku ciyaarayaan ama TV-ga ama ilmaha meeshii ay xornimo ay ku haystaan oo ordayaan, asiga kursiga ku fariisanaysaa, labada gacmood issaar, meesha ma ka dhaqaaqi kartid because qaladkaasaa gashay. marka ilmo boodboodayo ciyaarayo wuu rabaa maho, ilmaha ciyaarta waxay ka jecel yihiin ma lahan, laakiin wuu ciqaaban yahay. saas darteeda qalad dambe inuu galina laga yaabo ama qaladkiisa uu yaraado adigoona dilin oo maskaxdan aadan ka dhaawicin. waxaa jira qodob kaloo aad iyo aad muhiim jiddan u ah ilmaha markii la tumo qaladayba kaa galay, maalan waaba tumtaba ama waa garaacdayba ama waa disha saa u taqaanid, usha markii lagu garaaco way ooynayaan si loogu qafiifiyo usha yani garaacitaanka, amaba uu xanuunkaas uu dareemayo uu la ooynaa, ama in laga qafiifiyo ushii la ooynaa. ha aamusiinin baliis, maxaa u aamusiinaya waaba dishe, ha ku dhejina neefta, waa la dilaa, afkaaga 2 farood saaraa la leeyahay. maxaa dhacay? ilmaha dhibaatada ugu weyn ugu imaata maskaxiyan iyo maxaa la dhihi jira waxaa ka mid ah oohinta lagu celiyo. oohinta laisku celiyo ama qofka lagu celiyo waa cudur, adiga ma rabtid in lagugu celiyo. tusaale ahaan adaa qof u sheekeynaysa, hiblaayaa u sheekeynay, hiblaayadaa u sheekeynaysa waxaa laga yaabaa inay inta ka baxdo inta ka dhacdo markaa dhehaysid inay wax ka qabsanayso, inay si kaaga mashquulsanta ama moobeel ama kaaga sii jeedo, waa xanaaqi adi, waa isxire, waayo waxbaa kusoo riixaya fardabici rabto oo intay ka dhacdo waxa u sheegi rabtay wixiiba, ama waa lagugu shubiye ama inay iskaa jaahilsiinaysaa aragtay. adi maxaa dareemi? cariiriyaa dareemi. maxaa u malaynaya qofaa intaa garaacday xanuunkii uu la ooynaya haddana aamusiisid gabar soo naqana. baliis ha aamusiinina, ha ooyo, nafisay u tahay oohinta. qodobka kale waxay tahay hadduu adi qalad kaa dhacay, ilaan bini aadanaa tahay, qalad markuu kaa dhaco yaa qiro inuu qalad kaa dhacay, ha dareemo in uu yacni saanay ahayd iyo inaa saan suubi ma ahayn ama qaladkaasaa iga dhacay dhehaysid. marka yacni muhiimadda waxay tahay inaa qaladkaaga qiranaysaa muhiim ah. hadduu kaa arko qaabka qaladka loo qiranayo, asigana qalad hadduu galo wuu qiranaa, ama asxaabtiisa ka galo ama haddii ha kaa galo. bar sida yacni qaladka haddaa adig geshid aa u qiranaysid. qodob kaloo asigana muhiim ah waxaa waaye ha ku canaanan dadka hortooda ama asxaabtiisa, ha ku canaanan ama ha ku tumin ama ha ku canaanan, because wuxuu dareemaa cariiri, uu dareemaa kalsoonidiisa dhumayso. ha ku canaanan dadka hortooda ama ha ku tumin. si gooni ah haddaa canaaninaysa ama aad tumaysid xataa gooni u tun, kalsoonidaa ka dhumaysa cunuga. waxaa daruuri ah qodobkan asigana daruuri waayo, cunuga waa inuu yaqaanaa raaligelinta, inuu qalad markuu kaa galo hooy macaan qaladaa kaa gala, aab macaan qaladaa kaa gala, saama inuu daanka kaa shumiyo, inuu sujuudda kaa shumiyo, inuu qaladkuu galay qiran karo. qodobkan waa muhiim jiddan. noqo hooyo baraarugsan, inaad baraarugsanaatid ama feejigan daruuri waayo. qodobka kaloo xiga waxay tahay intaan dhan sii wada ma ahayn, cafwan, ha tumin ama ha dilin hadduu qaladkiisa qiranayo. yacni maalan wuxuu kaa sameeyey saa inaan sameeyo ma ahayn aabbo ama hooyo, saa inaan sameeyo qaladaa galay. qaladkiisa hadduu qiranayo ama ka shalaysan yahay ama nadmaan uu yahay, ha dilin, waayo ciqaab intaasaa ugu filan. ha garaacin. meeshaas ayay ku joojinaynaa insha allah. wixii talo tusaale ahna qaybta commentiga noogu reeba insha allah.
haddii uu channelkeena uu kugu yahay markii ugu horeysay please waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad noo saartid like-tan dhacan ugu siisid gambaleelkana on ka dhiga si cashar walba oo soo gelino aa ugu noqotid qofka ugu horeeyo insha allah wixii talo iyo tusaaleyna qaybta commentiga noogu reeba insha allah share dhisi ehelkaaga iyo familkaaga friendska ugu faa'iideystaan waana kaaga mahadcelinaa wajazaakum allahu aljanna meel walba joogtiina waxaa idin leeyahay allah yaxfadakum في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.